now and press the bell icon. Never miss an update. holac Somali TV subscribe please. السلام عليكم وإذن سلام دمانتين أصحاب الأبور شركة حيقول على الصباح واحد دقنا هاي قري قديمة أنا قري واجه روجين قضاء أنا جنا فاين رأس كبحيو وحاي جبرت الضوية 8 سنة جرتني منك هذا يقول لي منهان لبذ قرينا وحيكك الكوبين قري أوجين قضاء يقول الواحة أصحابتي إذا لفدي دمام وذا شيء سنة saa u sheekeysanayna saacaddu waxaan ugu gaartay 5 saac oo subaxnimo ugu dambeyntii waxaa go'aansanay inaan baxno midda ugu layaabka badan waxay tahay hooyaday meel tacsi u socotay anigana waxaan go'aansaday asxaabteyda inaan raaco aan saaxiibkii gurigiisa aan seexdo marka saaxiibkii waxaan ku yiri hooyaday aan fasax ka qaato hooyo timo dhuxul fasaxa u baahanahay saaxiibkii aadna 2 barkimood ay soo qaad na gurigeena ma garanaysa maan dhacadii hadii wax dhibaato ku soo gaarayaan loo qabsanaa marka meesha ugu layaabka badan waxay tahay gurigan duleel weyn uu lahaa aadaan loo cabsanayay midda ugu daran waxay tahay duleelka qof walba ay iga soo gali doono anigana waan qabtay duleelkii maraan saaray waa ooday macnaha albaabkina waxaan ku xiray ii sheeg xariga kabahayga ugu dambeyntii anigoo buug aqrisanayo saaxiibkeena meesha fadhiyay kaligii hatay maandhacad xun baan ahay waa la igu dilaa guriga ugu dambeysay waxaan sameeyay korontadii damiyay macnaha leerkii sa u hurday 11 saac subaxnimo markii la gaaray shanqarka baa maqlay qof agteeda ku socdo aniga naxdin waxa isiri talo qofkan uu ahaa isla markii hurdada ka soo bad yaa ku jira guriga isla markiina barkinta la igu qabto naamaando cadiyo maaniga ay taqaana waa ku dilaya barkinta wajiga liga anigana feer nasiib baa leeyahay sababtoo ah adeerkii ay iga soo gaaray waa ku soo laaban doona waxay timaado xushalay adeer maxaa ku helay gabadheydii adeer waa la soo weerar warmay sidee maanta oo dhan aan ku wacay ninkan duleelkaas ka bax wah maruntaaba ka waran baladii mindidaas la igu dhufan la isha la iga gelin lahaa meesha ugu layaabka badan waxay tahay hooyada aamus ay tiri laakiin mindidaas shub isha hadii laga siin lahaa nolosheeda meesha ugu dambeysay ahaan la asxaabe like far badan muuqaalkan saara soo meelo far badan u gaar sheekadan mar dhow igu dhacday bishii afraad 29keedii 2025 waxaa joogay saaxiibtay gurigeeda iska baashaale qadka ku jiray midda ugu daran waxay tahay walaalkay ma jecel badana inaan baxo oo ilaaliya inta badan aniga waxaan jeclahay kalinimada sababtoo ah bulshada ku dhex noolay inta badan anigoo taleefankayga iska daawanayo sawirro iska qaadaa mararka qaarkiis in la fiiriyo ma jeclay markii dadka iga kala tagaan dhac sawirro isku dhijin jiray ugu dambeyntii waxaan dareemay shanqar kabo oo meel ka soo socota aan la aqoon meesha ugu layaabka badan waxay tahay guriga cabsi fara badan buu lahaa anigana zaid oo cabsanayay ugu dambeyntii waa nafsaha iga tag waa naxay dhac sawiradeeda isaga xishtay markii la soo gaaray July 17 2025 korontada cilada jirtay ugu dambeyn waxaan go'aansaday inaan Instagram-ka meelaha iska galo sawir waxaa jira live iska qaaday aan markaa fiirsanay aniga waa yaabana waxa islaam muuqaalka maxaa ka qaldan aad duubtay ugu dambeyn waan ku ceshtay markaan ku ceshtay waxaa dareemay wax aan buligii aan arkin sababtoo ah aad baan u naxay sababtoo ah muuqaalka waxaan ka dhex arkay gacan oo fureyso farinjeelka guriga nooya war waxaan ma dhaco markaa sawirada iyo videoga aan iska qaadaya badana gabadha quruxda badanaya markaas waxaa arkay gacmo farinjeelka albaabka soo furay aniga naxdinta aan naxawligii ma naxan markaas waxaa isiri guriga kaliya kuma noolida dad kugu la nool waaw maando cadii meel galeed qodo waana baalkaan oo ahaa waana qiso xanuun badan oo igu dhacda asxaabe like far badan saara sheekadana saddexaad aniga da'da 30 jira waxaan ku noolaa England sidoo kale xilliyada fasaxa ama habeenada waxaan jeclahay inaan kalluumaysi sameeyo ugu dambeyn waxaa arkay 4 nin oo dhinaca ka soo ordayso mugdi ahayd wajigooda looma jeedo markii ay soo dhawaadeen waxaan dareemay inay aniga weerar igu yihiin sidoo kale ay xiran yihiin madaxa faraska waa yaab aniga markii ay soo dhawaadeen waxaan dareemay niman waaweyn inay yihiin
wayna qoslayeen bahasha oo kalluunka lagu dabanayo wayst oryaa mana maqlaysaa kalluun fara badan meesha ma ka heshaniyo maandhaco xunka ruuxa kalluuna la malaaniyo aniga ma aqoona ii leedin horta qofka waxa hele mala markaas waa ku ciyaaray moogta markaas ay igu yiraahdeen kalluun la'aanta maxaa waay maandhaco meesha ma ii taaganta sida sanankii adiga ku hadda ku dabaneen dhaqso badaas ku bood haddaan ku dabayna sida kalluunkii oo kale markaas waxaa ogaaday nimanka wax kale inay damacsan yihiin anigana yab xariifka telefoon oo ii soo taagay teleefoonkana muuqaala meesha ka socda muuqaalkii markaa fiiriyo waxaa waaye nin ay silcinayaanbo oo swimming poolka ku jiro ayakana baalkii lagu dabanayo kalluunkii ku warwareejina ninka ma kalluunba waraa naga daaya dee ciyaarta waxaa tiina cunaa waxyo timaha faras kale oo maskaraatiga faraska soo xirtaan ninkana silac ay ku dileen markaas yira ninka ma ujeeda saa u galan saasan ku galeen adigana maandhaco kali jirin waryaa mana maqlaysaa sida camal inaan kugu sameynaa rabnaa diyaar ma u tahay sidan war maxaa idinka qaldan idinka aqoon ma ii leedin aniga yab waxa sameeya garan waa markaasay damceen inay igu soo dhadhawaadaan anigana waxaa is iri caawa meesha kugu dambeysa noloshaada way ku qalan doonaan kuwan isla markii badii rabeen inay igu tuuraan laakiin birtan ku dhuftay aawada iyo bahash kalluunka lagu dabana orod ma dhado istaabtay warmaanigii aqoon ii leeyin horta qofka inaa Xuseen Bolta ma ogamiya saa u orday feerbal kale soo qabta daa waxa sheegayseen waxaan oo kala magaalada ku noolnaa ugu dambeyntii meesha askar ay maada askarta markii nimankii baareen waa la waayay anigana habeenkaas haddaan ordi lahayn saacadan waa dhiman laa asxaabay like saaran ku maadsantiin daawashadiina muuqaalkan like fara badan hal saar channelkana subscribe dheh konton kuna asxaabta hal abuur dhammaan waan salaamay hal abuur muuqaalo cusub aan rabaa inaan kusoo gudbiyo dhawaan la socda midda kale Holac Somali TV ana ka iskale waxaa idinka codsanaa Holac Somali TV konton kun inaan gaarsiisaan ka badan waa jecelnahay ilaa 100,000 asxaabteyda dhammaan dali dibad waa idin salaamay cunugii ciroole dhammaan waa salaamantiin aad idin jeclahay muuqaalkan like fara badan noo saara subscribe ka saara muuqaaladana waan soo badin doonaa insha Allah marka aad idin jeclahay raaxaysta inta dunida saarantiin qeyr idin rajeena xitaa mar dhow waxaan jeclahay Facebook page inaan furo waa idin soo sheegi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo marka qeyr badan idin rajeena maalinta idin wacnaato muuqaalkan like fara badan saara